jaamac ismaan geeljire oo ka hadlayay munaasabad telefishinka saab u qabtay wariye cabdimaalig muuse coldoon ayaa sheegay in marka cid wax laga sheego ama la dhaliilo markiiba qofka lagu shaambaday inay cidi ka dambayso arrintaana wuxuu siyaasigu ku tilmaamay in ay tahay dhaqan aan wanaagsanayn iyo aragti liidata waxaanu siyaasigu soo jeediyey inaan xaqa laga gaban iyadoon cidla lagu gafayn isagoo arrintani ka hadlayna wuxuu yidhi caalamku halkuu marayo arrin ka dhacday Mareykanka ayaa looga mudaharaadaya waddanadii kale inta muwaadiniintu soo baxaan oo leeyahay waxaanu ka xunay taa ee tan wax laga bedelo ay joogaan oo yana nidaamka qaad innagana waxa laga yaabaa halkan xaqeena inaan toos ugu heli karin la oranayo hadalkii baa la soranaya waa laga dambeeyaa waa daciifnimo kelmadda imika suuqa ka baxdo waa laga dambeeyaa waa waxa ugu daciifsan aan maqlo ay ummadi maqasho qof wax sheegay oo la yiraahdo laga dambeeyaa waa waxa ugu daciifsan waa waxa ugu difaac yar waa waxa ugu liita sidaa kaga hadhina waxa xaqa dulmi iska ilaaliya hadday dawlad tahay oo dulmidaan ama madax tahay iyo hadday shicib tahay